رواد السلام خيارتها هذا نقدر ونيساي كوسو دواده وعاوي عياره waxaa la wada ciyaaray kulamada English Premier League waxaa la wada ciyaaray kooxda Luton iyo kooxda Manchester United halka record cusub Hojland oo jabiyay record u yaalay horyaalka Premier League Manchester United oo guushii afraad oo xiriir ka soo hoysan leeyahay Premier League xilli uu Hojland wacdara ka dhigay halkaas la ciyaaray oo labada kooxood ay ciyaareen kooxda Manchester United iyo kooxda Luton ayaa wuxuu ku soo idlaaday 2-1 halka uu caawa record cusub dhigay weeraryahanka Manchester United Rasmus Hojland ayaa jabiyay record gool dhalin ah horyaalka wadanka Ingiriiska ee Premier League markii uu 2 gool oo degdeg ah ka dhaliyay Luton oo ay marti ugu ahaayeen Luton oo caawa gurigeeda marti ugu ahaa ayaa 2 laga hormaray labadan waxaa ka dhaliyay wacdarahaas waxaa dhigay ciyaaryahanka Hojland isagoo 7 daqiiqo gudahood ku dhaliyay 2 gool goolka koowaadna 37 ilbiriqsi ku dhaliyay Hojland maalmahan dambe ciyaaraha uu dheelo dhan goolal buu dhaliyaa walow uu maalmihii ugu horeysay la qabsan waayay kooxda Manchester United laakiin hadda maalmahan dambe wuxuu u muuqdaa nin booskiisa dhacsanay waa nin xoogan waa nin gool dhaliya waa nin ciyaaryahanka iska tiirin kara waa nin walow uu bidixda kaliya ku dhaliyo laakiin si kasto ay tahayba waa nin mataqaanaa falsafadeeda iyo xooggeeda iyo ciyaarta qaabaalka iyo baas qaadashada iyo mataqaanaa iyo weerarka maartay weerarka u dhaxeeya isaga iyo difaacyada ka soo horjeeda waxa waaye nin aad iyo aad u adag weey 21 jirkan caaw wuxuu jiraa la yiri 21 sano iyo 14 bari ayuu jiraa 21 jirkan ayaa waxa uu goolkiisan ku jabiyay record dhinaca goolasha ah oo u yaalay horyaalka Premier League record u yaalay ayuu jabiyay waxaanu noqday ciyaaryahankii ugu da'da yaraa ee 6 ciyaarood oo xiriir ah goolal ka dhaliyay horyaalka Premier League 6 ciyaarood oo xiriir ah ayuu goolal ka dhaliyay horyaalka Premier League waana recordka ciyaaryahanka ugu da'da yar waa da'diisuna ay tahay 21 sano iyo 14 bari xagaagan bilowgiisa ayaa waxay ku soo iibsatay 72 milyan oo gini oo ay kaga soo iibsatay kooxda Atlanta ayaa bilowgii hore ku dhibaatoonayay horyaalka Premier League la qabsan waay galab wax gool ah ku sari waay markaas la yirkan ama noqda daacad khasaare ama noqda ama wax khasaare wada laakiin hadda ayuu ismuujiye la leeyahay inuu u qalmo qiimahaas oo kalsooni ay Manchester United u muujiyay hadda kalsooni ayuu Manchester United u muujiyay maadaama uu mataqaanaa ciyaaraha maalmihii ugu horeeyay uu ku dhibanaa goolkiiba uu la tagay goolna la soo tuurayna xabadku kaga dhacay waana dhashay marka saas ayay walow ay gadaal hal gool kala timid kooxda Luton marka Hojland waa nin dhameystiran oo kooxda Manchester United walow hadii uu Man City joogi lahaa ama Arsenal joogi lahaa oo goolasha ka badan dhalin lahaa maadaama laga rabo striker-ka kooxda Manchester United waxaa laga rabaa inuu soo shaqeysto soo xamaasho laakiin striker-yaasha Arsenal iyo jooga iyo Man City waa idib caadiya waa hadda De Bruyne kale wuxuu joogaa kooxda Man City Haaland muxuu ku noolyahay De Bruyne uu isoo tuur aan raaciyo waay De Bruyne uu isoo tuur marka Hojland waa arkaysan goosha caaw uu dhaliyay oo goosha koowaad ahayd halku ka soo qaado diina dashota Manchester United banaankeedu ka soo qaado uu dhiibtay uu dhaqaaqay waa loo dhiibay suula socdo tagay waana ka dhaliyay marka waxa way isaga falsafadiisu waa dhiibana oo ku dhiibana easy tour laakiin istaraatiijiyaasha kale English Premier League wuxuu kaga duwan yahay kuwa Manchester iyo kuwa Arsenal iyo kuwa Chelsea iyo kuwa mataqaanaa maxalliga Man City iyo ninkan striker buuxa waa full striker waa maxaa yeelay ciyaarta Bruyne isaga soo shaqeysanaya uu dhiibana uu dhaqaaqa uu soo difaacana uu soo shaqeysanaya waa ka dhac oo keensana marka ciyaaryahankan yaa loo daymo la'aanin waa ciyaaryahan full striker full finisher meeshii laga rabay waa Hojland Real Madrid ayaa caawa barbaran niyad jab ah oo daqiiqadihii mataqaanaa ciyaartu socotay hal iyo hal bay ku soo dhamaatay ayadoo rabtay inay dhibcadeeda sii badsato Madrid ayaa rabtay inay dhibcadeeda sii badsato oo kor sii aado marka xoogaa waa lagu dhagaa caawa Rayo Vallecano
Rayo Vallecano ayaa caawa ku dhigtay Real Madrid oo 1-1 ay isla dhaafi waayeen. kooxda Real Madrid ayaa 2 dhibcood ku dhumisay sidaas ayada ah. kooxda Real Madrid way tagtay bay islahaayeen balse caawa maadaama loo qabtay Real Madrid niyad jabay ku noqotay. kooxda Barcelona iyo Atletico Madrid-ina xoogaa moral ay u soo yeeshay. waxay ku hogaaminaysaa kooxda Real Madrid 62 dhibcood bay ku hogaaminaysaa. kooxda Real Madrid ayaa caawa gool dhashatay wala bareejiyay gool kale ay hadana dhashatay goolkii kaleeto waa laga diiday maadaama uu noqday far markii la aaday. goolkii kaleeto wuxuu noqday offside buu noqday. offside baa loo diiwaan geliyay marka saas awgeed goolkii labaad waa laga diiday. ayadoo hal gool ay leeyihiin ayaa gool uu soo laaday kubad sameeyaha Oscar Trejo ayaa gool soo laaday dishootaha dhexdiisa calaamada 18 dhexdeeda ayaa Camavinga gacan loogu saaray. saasna waxaa lagu dhigay rigoradaas oo uu u bedelay gool Raúl de Tomás. natiijada ayaa ka dhigan Real Madrid inay haysato 62 dhibcood halka kooxda ku xigta ee Girona ay ayaduna leedahay 54 dhibcood. saas waxay ku horeysaa 6 dhibcood laakiin Girona game baa u dhiman hal ciyaar baa u dhiman ciyaartaas haday dheesho oo ay reyso markaas kooxdan Real waxay hogaanka ku hayn doontaa 3 dhibcood oo kaliya waa hadii ay Girona reyso. Madrid ayaa Barcelona waxay kaga haysaa kaalinta saddexaad ku jirta 8 dhibcood. sidoo kale Atletico Madrid ayaa iyaduna kaalinta afraad fadhida. waxaa ciyaaray Bayern Munich iyo Bochum. kooxda Bochum iyo Bayern Munich ayaa wada ciyaaray. kooxda Bayern Munich ahayd maalmahan dambe xaalkeeda aad ayuu u xun yahay. ciyaartoy uma yara, lacag uma yara, coach uma yara. kooxdu ma inkaaran tahay xagee laga haystaa Bayern Munich tan naqanay maahan. ciyaartoy dhinaca baalash waa ka dhisan tahay oo qadka dhexe waa ka dhisan tahay oo difaac waa ka dhisan tahay haddana cuquba haysta cuqubo ku dhacday kan Greedy miya cuquba ku dhacday waa marka coachkii Thomas Tuchel ahaa cuquba ku dhacday wax kale ma garatay cuquba ku dhacday maxaa yeelay ciyaar walba defeatkiisa batay. gamekii ka horeeyay waa tii Bayer Leverkusen macallin Xavi Alonso waa saddex u dhiibay waa ka shabaqa xataa taaban saddex waa u dhiibay. caawa sidoo kale 3-2 loo dhiibay. caawa kooxda Bochum ayaa 3-2 u dhiibtay. goosha koowaad ayaa Bayern Munich baa la hormartay. Jamal Musiala ayaa goosha koowaad u dhaliyay 14 daqiiqo markay mareysay. 38 daqiiqo Asano ayaa bareejiyay halka ciyaartu waxay socotaba isla kooxdan oo caawa la dheleysay ayaa gool labaad heshay. gooshii labaad baa laga dhaliyay daqiiqadu markay 78na haddana rigora lagu helay Bayern Munich. rigoradii baa laga dhaliyay. Harry Kane ayaa waxay raftaanba 87 ayuu Harry Kane gool labaad dhaliyay. halkaas waxay ku dhamaatay ciyaarta waxaa loogu tirtiray 3-2. ciyaarta Bayern Munich habeenada maalmahan Bayern Munich gadaal bay u sii socotaa. hadda Bayern Munich Bayer Leverkusen baa waxay hogaanka uga haysaa 8 dhibcood oo kaliya hogaanka uga haysaa. tanna Bayern Munich waxay leedahay 50 dhibcood halka Bayer Leverkusen ay leedahay 58 dhibcood. Bayern Munich iyo kooxda caawa ka reysay Bochum ayaa waxay wada ciyaareen 2021 ilaa hadda ayaa waxay wada ciyaareen ilaa 6 kulan ama 5 kulan ilaa 6 kulan bay wada ciyaareen. 6daas kulan kooxda Bayern Munich hal game oo laga raayay hore iyo game laba dhexda laga raayay maahane 4 game oo kaleeto ayaa waxay ka dhalisay 24 gool wadar waaxid isku dardarka. game bay wada ciyaareen 7 uga reysay Bayern Munich ayaa 7 ku reysay 2023 gamekii hore. haddana game labaad bay ciyaareen Bayern Munich baa 3 ku reysay. haddana game kale wada ciyaareen Bayern Munich 2022 Bayern Munich baa haddana 7 kaga reysay halka isla 2020 lugta labaad ay Bayern Munich 4-2 looga raayay. sidoo kale isla 2021kii 3 game oo ay wada dheereen min 7 looga raayay kooxdan Bochum. marka hadda geemkan dambe Bayern Munich wax badan baa ka qaldan. coachkana hadda wuxuu u muuqdaa in la ceyrin doono Thomas Tuchel oo horeyba Chelsea looga soo ceyriyay. ciyaartoy uma yara maxaan ku iraahdaa falsafad uma yara dhaqaale uma yara. kooxdan waxaa lagu yaqaanaa koox hogaanka haysa ama horyaalka sii dheeraysataba intaan la gaarin ba sii dheeraysata. seasonkan Tuchel waxaa ku dhacday cuqubo xun baa haysata
meel loo wato ma naqaano Thomas Tuchel iyo kooxda Bayern Munich intaba sidoo kale waxay haysataa ciyaaryahan gool dhalinta ku fiican waa Harry Kane oo kale Harry Kane markuu English Premier League joogay Tottenham champion buu geynay Premier League kaalin fiican buu ka geynay maxaan ku raahdaa gool dhalinta uu ku tartamay marka Harry Kane isagana wuxuu inta uga tagay adbal koob waaweyn qaadid sida maaragtay dhagaweynaha oo kale meelo kale to aad wax ka fiirsid Premier League ma qaadan dhagaweynana ma qaadan marka wuxuu isiri bal meel kale to xoogaa aad wax ku bedeshid bal aad raadisid raadintii uu Bayern Munich tagay aawe waxba ku sirlaay koobka isagoo fiirinayo oo indhaha saas u taagay koobkii bal yiri haye Harry Kane nasiib u maleeyay iska tag haddana waaba ka sii daray hadda Bayern Munich khaati uu ka taagay maxaa ku keenay ka maraysaa bay ka maraysaa khaati uu ka taagay marka Harry Kane waxaan maleynayaa waxa uu roonaa inuu kooxaha English Premier League iska dhiibo ama Arsenal ama Chelsea ama Manchester United kooxaha waaweyn oo raadinaya inuu iska dhiibo halka uu ka aaday Bundesliga maxay yahay oo Bayern Munich iyo Bayer Leverkusen bisa ku tartamo laba kooxood meel ay ku tartamayaan ay Borussia soo saddexaysa marka laba kooxood saddex kooxood meel ay ku tartamayaan wax macna ma laha waa in kooxda mataqaanaa kooxaha waaweyn oo dhan ay madaxooda taagayaan oo champion loo kala tartamayo Premier League la kala qaadayo koob la kala qaadayo wax la kala laakiin Harry Kane awalba meel cidlo aaday waa wixii ku dhacay oo kale Messi Barcelona oo qatar oo Ballon d'Orkiisa iska xaabsanayo ayuu intuu ka tagay wuxuu aaday PSG marka tii oo kale Harry Kane ku dhacay hadda Harry Kane wax macnaa uu meesha ku haya malahan Thomas Tuchelna cuquba ku dhacday isagana lagu cayri Thomas Tuchel kulli meel ma socotide haddii lagu cayriyana kulli koox kale lagu geeyo ordaad meelahaas iyo waxaad aadaa La Liga iyo meelahaas koox kale lagu geeyo aad kulli lagu cayrin anaa u jeedin dhaage kulli kama soo kabsanaysid Thomas Tuchel cuquba ku dhacday Bayern Munich cuquba ku dhacday marka cuqubadaas ku dhacday oo naqshada ay ka maaragtay ka warartay waxa waaye waxa ka faa'iideystay Bayer Leverkusen macallin Xafi Alonso uu fiiriyay falsafada iyo qaabkii markuu fiiriyay dalq madaxu la soo baxay waa kana kaalinta koowaad taagan uu 8 gool 8 dhibcood hadda ku hogaaminaya marka macallin Thomas Tuchel waxa lana hadda san wax ka bedelin adna waa lagu cayrinaya ciyaartay badanna ama falo bay noqonayaan ama guriyadooda u laabanayaan marka waxaan leenahay Thomas Tuchel sida wax ka bedel haddaad wax ka bedeli weydid Allah ku aruuri